يا عاد كله تكتي يا عاد كله gaari xamuul ah oo hubkan waday ayay ka soo furteen mid kalena ciidamada dawladda ayuu gacanta ugu jiraa shabaabna waxa lagu galay meel ay isku urursanayeen alla gala lagu hortay wararka labadan warbixin ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada waxaan ahay Cumar Guux hadii uu muuqaalka idin soo gaarana si share garay oo saaxiibadana la sii wadaaga aragtidiina waxaad noogu reebi kartaan qaybta hoose ee faallada soo dhawaada waxaan ku bilaabaynaa gaadiidkan xamuulka ah ee dhinaca Itoobiya ka yimid ee laba gaari ahaa isla markaana ku sii wajahnaa sida la sheegay gobolka Mudug ee dawlad goboleedka Galmudug hubkan waxaanan la ogeyn halka loo waday laakiin waxa kaliya la xaqiijin karana ay tahay in laga keenay dhinaca Itoobiya waa laba gaari oo xamuul ah ayay ahaayeen dhinaca Caabudwaaq ayay ka soo bixeen marka ay marayeen deegaan lagu magacaabo Shil Madoobe waxa gudaha u galay madaxda u galay dagaalamayaal hubaysan oo maleeshiya beeleed inay yihiin la sheegay kuwaasi oo hubkii saarnaa kala degay deegaankan oo hoostaga Caabudwaaq waxa la tilmaamay sida muuqata sawirada iyo muuqaalada halka ka imaanayana hubkii la qaatay misna laga degsaday gaarigaas xamuulka ah in loo qaatay lala galay degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud halkaas oo caawa hubkii ugu cuslaa uu yaalo dagaal kooban ayaa dhexmaray ciidan la sheegay inay ka tirsanayeen dawladda federaalka Soomaaliya inay ahaayeen nisa iyo sidoo kale ciidankan hubaysan ee maleeshiya beeleedka ahaa kuwaasi oo ku dagaalamay deegaanka lagu magacaabo Shil Madoobe ee u dhaxeeya Balanballe iyo sidoo kale Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud wararku waxay sheegayaan sidoo kalena dagaalkaasi ka dhashay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirada dhimashada waxa ay dadku deegaanka xaqiijineen inay gaarayso ilaa 5 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah sarkaal nisa Galmudug ka tirsan ayaa la xaqiijiyay geeridiisa kaasi oo lagu magacaabo Faysal iyo dhaawacyada askar kale oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo dagaalkaasi la tilmaamay inay qayb ka ahaayeen sidoo kalena difaac u ahaayeen gaadiidkan mid kamid ah laga qabsaday oo hubkiina lagala degay sida muuqaalada halka ka imaanaya waxa ay tilmaamayaan gaadiid yar yar iyo mootooyin hubkii lagu soo guray oo ku sii wajahan degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud qaarkoodna gudaha u galay waxaanan la ogeyn waxa hubkaasi uu ahaa iyo halka loo waday su'aal ayaa ka taagan halka laga keenay hubkan iyo cidda sida gaarka u lahayd iyo halka loo waday intaba laakiin xogo kala duwan oo aynu helnay ayaa xaqiijinaya in hubkii ama labadii gaari mid kamid ah maleeshiyaadkaasi ay furteen halka midka kalena gacanta uu ugu jiro ciidamada nisa ee dawlad goboleedka Galmudug halkaas waxa la xaqiijiyay inay ku sii wajahan yihiin ciidan kale oo dheeraad ah oo ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug kuwaasi oo doonaya inay soo furtaan mar kale hubkaas ay qaateen maleeshiya beeleed dagaal lagu riiqmay oo muddo ka badan 3 saacadood socday ayaa dhexmaray ciidan ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa commandoska Gorgor Khalid bin Waliid iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca iyo dagaalamayaal ka tirsan shabaab deegaan lagu magacaabo Waniile oo la tilmaamay inay shabaab isku urursanayeen ayaana la galay oo dhinaca cirka iyo dhulkaba laga duqeeyay war lagu daabacay warbaahinta dawladda ayaana lagu sheegay in ka badan 60 dagaalamay oo shabaab ah oo horjoogayaal ay ku jiraan lagu dilay weerarkaas ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca iyo diyaaradaha dhinaca cirka ka duqeeya dagaalamayaasha shabaabku ay iska kaashadeen lagu dilay tira intaasi ka badan ayaa jira oo dhaawacyo ah sida warka lagu sheegay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Dayax Cabdi Cabdulle ayaana warbaahinta ciidamada qalabka sida uu xaqiijiyay sida wararka lagu daabacay waxaana jira khasaare kale oo soo gaaray dhinaca ciidanka dawladda taasi oo la sheegay kaliya inay ku eg tahay dhaawac dagaalka waxa mid aad u culus ayaana ka dhashay khasaaraha intaasi leeg inkastoo aanu jirin warar ka madax bannaan dhinacyadan oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal arrimahaana barnaamijyada wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa labadaas gaari xamuulka ee hubka saarnaa oo la isweydiinayo iyo dagaalkan khasaaraha rasmiga ee ka dhashay